waxay ka balaabataa guriga taariikhduna iyada isqortan sadaqadu gurigay ka balaabataa oo ninku deegaanku ka soo ruuxu shakhsigu rag iyo dumar deegaankay ka soo yeeleen inuu xusuusto dhibaatada iyo dheregtaba inuu la qaybsado xaq buu leeyahay annagana canaantaadna canaanaydiseen xaq baan noogu leedihiin waan soo dhowaynaynaa laakiin dhaliilo aanu leenahay oo kale way jiraan oo idinla wadaagnaa dee isimada cali salamaan haddii ay markaa shafka ku tubi karaan male oo isimada caalamka la mid maa laakiin waxaan idinka ballan qaadaynaa insha allahu meeshaan wax gaadhsiin karraba inaanu gaadhsiino intaa waxaan ku soo koobi lahaa warbixintii guud waxaan u soo dhowaan lahaa xagga waxbarashada marar wejiyo badan bay soo yeelatay waana furihii nolosha waa dhaliilaha faraha badan oo aynu isfarayno meelaha inoo ka timi deegaanka beeshan ugu badan oo beelaha ugu dhabar ballaaran puntland lagu tilmaami karo waxaynu ka nahay waxbarashada dadka ugu tayadaya marka waa inaynu ku baraarugansanaanaa waa inaynu ahmiyad siinaa albaabkaa furmay waa inaynu xoojinaa waddannadu iyagaa isku tashada dadkeenna la midi tiraaniya laba tiraani uu leeyahay ilmihiisa wuxuu ku talagalaa inuu hadduu xataa waxbari waa qayb waxbarashadooda dhan kaamil yeelo laakiin innaga ilmuhu 15 hadduu jiro waxaa kula tagtee noo soo jilaab badda aad ama qarka aad waxa weeye marka dadku iyagoo shaqaysanaya bay wax qabtaan taro kale ma keli karo barashadu way fiican tahay shaqadu laakiin qofku waa in la dhisaa markii la dhisana waa in abaal gud laga sugaa abaal celin dhalinyarada waxaan leeyahay fahmadana allah u furo fikirkoodana allah wanaajiyo jiil khayr qaba baynu rajaynaynaa oo muwaadiniin oo wadaniyiin oo wadanka iyo dadkooda wax u barta u dadaala waa cusub inoo u beriyo baan ilaah uga rajaynaynaa qodob nuur formation laakiin wax wanaagsan baad qabateen albaab wanaagsan baad furteen laakiin sida dad badnimaydu ku yiri wixii khayrka aad balowdeen waxa la idinka rajaynayaa inay horay u socdabad inaynu iskaashano dalkeena iyo dadkeena inaynu ku baraarujino inay wax qabsadaan qofku hadduu wax suga kaliya yahay waxba uma hagaagi karaan qolada dibadda joogta waxaan leenahay diasporaha dhinac kasta ha joogeen degmada warbixinteedina waa maqlayseen waana dhex tagnay waxqabad badan iyo u soo jeedsi badan iyo waxtar badan bay u baahan tahay xag aqooneed iyo xag dhaqaale iyo xag ijtimaaciba wax badan bay qandale u baahan tahay waxayna marti uga tahay ummaddii ka soo tiil oo caalamka maanta meel kasta joogta khayrna alla siiyey ummadda kalena ku xasdayaan waxay haystaan laakiin ummaddooda iyo deegaankooda rasmiga ah ka baahan yahay waxaan rajaynayaa cid kasta oo qurba jooga oo meediyaha codkaan ka maqlaysa inay tixgelin gaara soo siiyaan weliba waxaan aad ugu rajo weynahay ciddii kasta oo wakhti heli kartaa inay wakhtigeeda qayb ka mida soo siiso siday u aragto deegaanka baahiyaha iyo duruufaha ka jira oo aad u adag ulana qaybsadaan dadkooda intaa qoladayinkeed qurba jooggaa baan odhan lahaa dowlad baa qabtay hadda waxaad yani xisaabta ku darsataa booskii dowladdu taagneed in waalidin taagayn caalamkana kama jirto caalamka sidiisaba waxa weeye
waxbarasho lacag la'aana kullayba waa wax yar dalalka inay ka jirto laakiin uma badna dadku iyaga isku tashada marka ilmihii waad u ogoshahay inaad wax u gadid wax siisid seexisid markuu jiran yahay daawo la doonto haddii waxaad ku dadaashaa inaad ugu darto maxaan kuu sheegay xilligii loo baahdo inaad wax ka kabto waalidiintu inay wax ka kabaan siday ku socon lahayd waxbarashadu xisaabta ku darsada ila wixii ka weynaaba ilmihii waa u haysaan haddaanu wax baranna waxba idin tari maayo waxaas aad kusii wadaan wax alla waxay taraysaa laysa bishay waxay taraysaa waayo maanta waa laga tegey adduunka waa laga tegey wax ma aqaan sideedaba adduunka waa la marka wax ma aqaaneedii ku soo harto dad waaweyn oo maxaan kuu sheegayay jira oo mujtamac badana wax ma aqaan iyay ina helin haddaynu gacanta ku haynaayo iyo inaan iska sii dayno wixii ina ka dhinma inta iyo ciyaalka keenistooda waar ha lagu dadaalo tan ugu muhiimsan waa taas raggaas dhallinyarada iyo odayaalba way leeyihiin ganacsato ururo waxay ahaadaanba isxilqaamay yaan laga abaaldhicin reer qandaba ha ka abaaldhicina weliba waxaan ogahay barnaamijyo kaloo waaweyn oo fiican bay wadaan hadday tanu najixi weydo kuwa dambe inama soo gaari doonaan ilaah baynu ka magan galay inayna soo gaarin kuwa dambe inama soo gaarayaan bal sidii kuwa dambe aynu ku maaragtay ku hanan lahayn kuwa dambe ku sugi lahayn aan dadaalkeed marro aanan aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhegaysiga waqtiga gaaban waqti sida maaragtay qomada leh oo dhegaysiga iyo fadhiga iyo soo dhaweynta waa idinka mahad celinaynaa aad iyo aad mar labaad mar saddexaad waxaan idin leenahay guulaysta suldaankaa duceeyey allah inoo aqbalan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi اثنين ثلاث أربع 1